Bismillahirrahmanirrahim. Kulan wacan oo wanaagsan daawade halkan waa telefishinka gobolka Banaadir ee Banaadir TV. Waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wararka dhacdooyinka toddobaadka markaasi dhacay. Toddobaadkana wararka dhacay waxa ugu waaweynaa magaalada Muqdisho. Hoteelka Xayaat ee magaalada Muqdisho waxa weeraray maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab. Howlgal qaata in ka badan dhowr saacadood ayay ciidamada ammaanku ay ku guuleysteen isbuucan soo afjaridiisa. sidoo kale waxaan idin soo gudbin doonaa wararka toddobaadka dhacdooyinka markaasi dhacay madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa loo dhaariyay isbuucan xubannimada golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee abdiyan sida uu qabo dastuurka dalka warbixin arrimahaasi ku aadan oo isbuucan dhacayna barnaamijka ayaynu daawadayaal ku soo qaadan doonaa sidoo kale waxaa qayb ka ah oo barnaamijkeenu ku soo qaadan doona madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa socdaal shaqo waxa uu ku tagay isbuucan magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland warbixin arrimahaasi ku aadanna barnaamijka ayaynu daawadayaal ku soo qaadan doonaa sidoo kale waxaa qayb ka ah oo barnaamijka aynu ku soo qaadan doonaa isbuucan wararka dhacdooyinka ee markaasi dhacay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa daafuray markaasi kulan wadareedka wasiirada ee xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo lagu lafaguray arrimaha hortabinta u leh xukuumadda dan qaran uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre warbixin arrimahaasi ku aadan oo ra'iisul wasaaraha kulankaasi uu daafuray ayaynu daawadayaal barnaamijkan ku soo qaadan doonaa sidoo kale qayb waxa ka ah oo barnaamijkeenu ku soo qaadan doonaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa isbuucan waxa uu dhagax dhigay furitaanka mashruuca biyo mareenka ee wadada isku xiri doonta ceel qalow ilaa iyo badda warbixin arrimahaasi ku aadan oo gudoomiyaha gobolka Banaadir uu ka hadlayo ayaynu soo qaadan doonaa oo isbuucan markaasi dhacay sidoo kale waxaa qayb ka ah oo barnaamijkeenu ku soo qaadan doonaa isbuucan wararka dhacay ciidanka xooga dalka ayaa isbuucan markaasi howlgallo joogto ah ka waday gobolka Hiiraan iyadoo wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xooga dalka jiida hore ee dagaalka ay ku sugan yihiin maalinimadii shalay aheedna waxa gaaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya gobolka Hiiraan magaalada Beledweyne mudane Xamse Cabdi Barre qodobadaas iyo qodobo kale ayaynu ku soo qaadan doonaa muddada barnaamijkan hawada ka baxayo waa hagaag daawadayaal barnaamijkan waxa halkan idinkaga tabinaya anigoo Cabdiqadar Maxamed Macallin halka aad kala socotaana waa TV-ga gobolka Banaadir ee Banaadir TV goordhow u diyaar garooba warkaas oo fidsan